السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا السلام على العيال من البجوتين سولو هذا الشاه أنا horta afkaan ka falanahay afkaan ka falanahay yaraanteyda horta dadkaan isku diri jiray waxaan ahaan jiray ubadka war ka soo qaado qof baan war ka soo qaadaya qof kale aan u geenaya qofka kale oo u geeya warka ayaan ka soo qaadaya qofkii aan ka soo qaado warka ayaan u geenaya dadkaan isku diri jiray si baan u falanahay run miyaa la isku nacaya ana horta iga maqlaysa inaan dhaho anu waa fiican qof fiican baan ahay maya igama maqlaysa weligaa wixii alla wixii alla wixii xum wixii alla wixii xumo xumaata eh yaa adi korka iga soo saara waan qaadanaya dhib mala marka waxaan afka uga faranaya aan kuu sheegaya waxay tahay odag baan u sheegay waxaan ku yiri youtube baan ku laabtay wejigiisa horta wuu isbedelay markuu isbedelay wuxuu yiri micnaheed maxaa tahay sida soomaalida hadda inaad u fikirto mar walba youtube-ka aad soo gasho sida soomaalida u fikirta bar aniga yaanahay haddaba muxuu igu qalday intii 7 sano wada joognay muxuu igu qalday inaan caddaanahay ya haddii aan soomaali ahayn amase sida soomaalida aan u fikirin maxaad ii moodaan ku yiri calaa kulli xaal gabadha way isgaranaysaa walaashayda oo joogto magaalada inaan sheego ma rabo in la garto ma rabo oo isoo wici jirtay wuxuu dhahay gabadha miyaa hadda inaa kusoo wacday inay kusoo wacday miya adduunya waxaa la barasho horteeda hayno ya dadka asagoona baranin uusan baranin qof ilaahay uusan aqaanin uusan ayuu dadkii oo dhan wada nacay ya waa dadka wuxuu la mid yahay dadka dhaho adigu ma ahane qof kaloon rabo ma laha ya ehelkaagaan rabin waxaan ku arki jiray soomaalidan ku arki jiray dumarka iyo ragga markay isguursadaan badanaa waxay u badnaayeen sexist yaan noqonayn dumarkay u badnaayeen waxay goon jireen xiriirka ninkii oo dhan ayaga xiriirkooda umay hagaajin jireen waalidkooda iyo wehelkooda iyo balse ninka xaggiisa marka lasoo sheegay gaw waa la goyn jireen markaa tii baa i haysata aniga tii baa i haysata calaa kulli xaal alaacal muxuu tari alaacal wuxuu taraya mala waxaan arkaya meeshan debate caadi ahayn ka taagan tahay saciid iyo dahabi koleyto labadiin ayaa magaceeda isku filan wixii isfahangelin iyo wax isku tar dahabi horta wax ka hadal badan malahan wax ka hadal badan karo malahan marka mid baan idin sheegaya aniga maanta haddii la yiraahdo anigoo hadda ilaahay baan kugu dhashay shilin ma haysta aniga ya wax iga fakhiirsan mala shaqadii hata shaqadii waan kasoo tagay de aniga maadaamaan shilin aana arkeynin shilinkii aan shaqeeyo o dhan aana arkeynin ya aanan maanta qof bini aadan iisoo calaacala aan waxba u tari karin aniga wax isku dari karin micnaheed maxay tahay aniga maxaan u shaqeynaya si maxaan ahaa aniga booyaase miyaan ah booyaasaaba iga fiican oo shilinkeed qaadanaysa calaa kulli xaal waxaan ka wadataa ayada maadaamaan shilin haysanin haddii la yidhaaho maanta waryaa deeqo 1 milyan oo doolar lagu siinaya xarigana intii doonta la ii qabto
lagu dhaho waa lagu ciijinayaa ama halkaa milyan qaado oo toobadkeen ya ciijiskaas ayaa aniga aan magaceeda maanta aan ka dooranaya sababta taa waxaan ka toobadkeena mala wax aan ka toobadkeena mala ya teeda kale waxaan ka yaabay soomaalidu ilaahay waxay ka dhigeen cadow ilaahay wuu ku dilayaa ilaahay wuu ku iqaabayaa ilaahay naarta buu gelinaya ilaahay dhulka ha kula gooyo abo cadowgii ahaa oo magaceeda naxariis aanan lahayn wax naxariis la yidhaahda aansan lahayn baa xabadda markuu kugu dhufanayo madax wuu ku dhahayaa wuxuu ku dhahayaa hadalkaaga kii ugu dambeysay maxay ahayd miseba horta ku dhegeysanaya hataa haddii balse ilaahay iyaga ma cadow baa soomaali horta way ku nacsiinayaanba ilaahay ya ilaahay kii naxariista badnaa ma aheeno waa commentiya meesha waxaan ku arkay ilaahay baa ku iqaabay ilaahay muxuu igu iqaabay anuu ka galabsaday waxaan ka galabsaday ilaahay igu iqaabay maxay tahay isagoo caruurtaas lagu gubaayo falastiin oo magaceeda dhimanayo har iyo habeen maxay ka galabsadeen ilaahay miseba iqaabtay leeyihiin maxay tahay horta waxaan waxaa la yidhaahaa universe the law of universe what goes around comes around is part of life waxan waa noloshay ka mid tahay waa la dhimanaya waa la noolaanaya waa la rafaadaya waa laga baxaya balse qof adiga intuu ku garab taagan yahay ya bugii qalin ku haysto waryaa qalad miyaa gashay waa lagu iqaabayaa qalad maad galin waxaa lagu siinayaa mahad celin miyaa la dhahaa ayaa lagu siinayaa ma jirto waxaas ma jiraan rafaadkan iyo dhibaatooyinka kulli waa wax barasho waa wax laga barto oo laga faa'iido dad baa wax ka faa'iideynin oo weligooda qaladkii shalaytay galeen kusoo laabanaya maanta berita ku laabanaya beri dambe ku laabanaya taas waa midda soomaaliya ka taagan ya balse mid walbaba qof balse qof walbaba hadduu yidhaahdo aniga waxaa noqonayaa askarigii ii soo diray ilaahay waxaan iqaabaya qof walboo qalad galo waa dhibaatada inaga tax taagan tahay odaga albaabka furay waa inaan ashunka ku aada ashunka ya daboolka inaan ku aada maayo markaan hadla ilaa markiis codkeygaa dhibay soomaaliga iyo codkii ayaa dhibay soomaaliga على كل حال على badan waa laga fiican yahay waxaan rabaa hadda maskaxdayda inaan ka shaqaysiiyo gym ayaan iska ka qayb galay jirkayga inaan ka shaqaysiiyo aan doga aniga horta hal bil ma shaqeynayo oo waxaan fiirinayaa inay albaabka laga ceerin doono ya kuleyt alaa kulli xaal midda kalena waxaan ku hadla ma aqaan aniga ya youtube-ka wuxuu u baahan yahay hadalka wuu iga dhamaaday talooyin ila soo wadaaga waxaa rabtiin inaad ogaatiin mise aan ka hadlo mawduucyo aan ka hadlay fadlan commentiya igu reeba si haddii anigana aan uga daalin youtube-ka aanan iskuga haysan waan islaam walaalayaal meel walba joogteen